waxa jiray nin namaam ah oo isku daa nin muslim ahaa oo miskiin daacada ahaa oo wadaad ahaa oo Ilaahay diinta baray oo ninkii dalka haystay markuu arkay wanaagiisa uu yiri warniyo baladila taliiside adiin naseexayside balii kaale mararka qaar wuxuu arkay albaabkii madaxweynaha oo ninkan u furan oo ninkani uu galayo uu ka soo baxayo wuxuu yiri ninka iyo madaxweynaha sidaad iskugu dirtaa ninkii boqorka ahaa buu tagay wuxuu yiri boqorow ninkan ku yimaada markuu ka soo baxo adigu buu ku caayaa markii uu dambeysay ayda uu maalmahan dambe sheegi jiray waxay ahayd boqorku nin nadaafad leh ma aha cabaygaba ma yaqaan haddaad ag fadhiisato urta ka soo baxaysa afkiisa u adkaysan kari maysid nin cadaydaba ma aha boqorku saasoo hadda dadka ku yidhaahdaayo boqorku saasoo ku caayaa buu yidhi bal adigu waad hubin doontaaye warkaa ila hubi buu yidhi saasoo kugu caayaaye boqorkii baa yidhi anaa hubinaya iska tag ninkii ayaa ka soo baxay isku diraaga ahaa wixii is yidhi si uu boqorku kuu rumaysto ninkan u tago waxaad tidhaa maanta martibaad ii tahay ninkiibuu u yeedhay wadaadka markaasuu yidhi walaal anaa ku marti qaaday namaamkii baa marti qaadaya anaa ku marti qaadaya ii kaalay buu yidhi gurigayga cunto wuxuu u sameeyey wada toon ah oo tooni ay ka buuxdo toontana welibana lama karinin toontii oo sideedii ah ayuu cuntada ugu sameeyey welibana aad ugu badiyey wuxuu yidhi waa dawe sheekh waxa weeye waxaan kugula talinayaa baasha faa'iido badan baan ka helaya inaad si fiican u cunto cuntadiibu soo hordhigo toontiibuu ka dhergay boqorkiibaa u yeedhay oo la soo hadlay oo yidhi ii kaalay ninkiibaa boqorka u tegey uu ka yaro durkay ilayn toon buu soo cunaye uu ka yaro durkayoo cimaamaddana afkuu saaray isagoo isle boqorka ha dhibin oo toontaadan bal isku day inaad ka celiso boqorkiibaa nin wax loo sheegay buu ahaa isna waxbuu eegayaa uu qiimaynayaa wuxuu arkay inuu ninkani uu diidan yahay waxa boqorku wuu rumaystay inuu ninkani caydii la sheegayey iyo dacaayadiiba inuu ka sameeyey dil baa lagu xukumay ninkii qoladii albaabka joogtaa loo yeedhay waraaq baa loo qoray waxaa la yidhi ninkaa u dhiiba halkan yaan lagu dilin ilin magaalada waa laga garanayaaye magaalo heblaaye ha tago waa waraaq jeegana lacag unbaa bangiyada lagaga qaadan jiray muslimiinta jeega ula tag baa la yidhi nin hebel oo lacag ka soo qaado waraaqdii buu soo qaatay ninkii wadaadka ahaa oo boqorkii ka soo qaatay namaamkii kama foga gurigan lagu shirayo ee boqortooyada sida ninka loo galo ayuu daawanayaa dibaddu jooga meelan ka dheerayn buu ka arkaya wadaadkii markuu soo baxay ayuu namaamkii ku soo cararay war boqorkii maanta muxuu ku yidhi buu yidhi bal iska waran wuxuu yidhi jeeg buu isoo siiyeyo wadan heblaaye buu yidhi lacag u doono namaamkii baa ku dhegdhegay markaasuu yidhi war walaal anaa baahan anaa duruufaysan anay baahi badan i haysaa jeegga aniga isii buu yidhi ninkii wadaadkaa markuu ku dhegdhegay jeeggii wuu siiyey oo wuu u dhiibay wadaadkii gurigiisii buu iska tegey ninkiina jeegga lama furo haddii la furo wuxuu noqonayaa wax lagu qaatay waxa gudaha ugu qoran ninka bangiga lagu yidhi kaga qaado unbaa furaya oo akhriyaya oo kolkaa ku siinaya jeeggii buu qaatay ninkii isku diraaga ahaa wadaadkiina gurigiisii buu joogaa gobolkii loo diray buu la tegey waraaqdii baa la furay dil baa kuu soo baxay baa lagu yidhi kaale waa lagu dilayaa jeegga anigu ma lahayn buu yidhi maytaasi annaga nooma taallo ninka jeegga sita unbaa kiiska lagu qaadayaa baa la yidhi horta ninkii namaamkaa sidii baa lagu dilay wadaadkii baa ku soo noqday ninkii boqorka ahaa boqorkii baa yaabay wuxuu ku yidhi warsawnigii shalay un jeeg kuu qoray xaggee tagteed ka timid wuxuu yidhi nin hebel la yidhaa oo dibadda igu sugayey ayaa jeegga igaga dhegay oo isagaan siiyey markaasuu boqorku ogaaday inuu ninkanina daacad yahay ninkan jeegga qaatayna ay dee ilaahay waxba kama qarsoona oo nin shirqool maleegayey inuu ahaa ayuu ogaaday bal ii warran buu yidhi maalintii aad ii timid waad iga fogayd afkana waad isaysee maxaa jiray wuxuu yidhi ninkaa hebela ayaa qada ii sameeyey wada toona kolkaa adiga ayaan kaaga baqayey buu yidhi boqorow boqorku sidii ayuu ku ogaaday oo wuxuu yidhi ilaahay waxba kama qarsoona qofka waxa uu geysto ama adduunyada ha ku helo ama aakhiraha lagu simee wuu helayaa qofka waxa uu dhigto waa beerad beeratay beerta aad beeratayna mar un baad goosan doontaa soomaalidu waxay ku maahmaahaan bohol hadimaha qodin haddaad qodana ha dheerayn ku dhici doonteena mooye ninka isku diraagi ihi
hogga uu qodo isagunbaa ku dhaca, inta badan isagunbaa ku dhaca. waa dhacdo runtii xaqiiqo ah oo jirta oo namaamka qusaysa weeye. dhacdo labaad ayaa jirtay. waxaa jiray nin namaam ah oo isku diraa ah, addoonna wuu ahaa. addoommada waa la iibin jiray, marka ceeb waa la iibin jiray oo sayladay lahaan jireen. kii lahaabaa iska iibi is yidhi oo saylada geeyey. muslimiintuna ma qariyaan ceebta. haddaad gaari iibinayso waa inaad sheegto daxalkiisa iyo ceebtiisa iyo dhaliishiisa. waxaad og tahay waa inaad sheegtaa. saylada markuu geeyey namaamkii, waa nin addoon oo aad u xoog badan, waa nin welibana tima adag. addoommada waxaa ugu qaalisanaa kuwa timaha adag, waayo degta waxay ku qaadaan way ka badnaan jireen dadka kale waxa ay qaadaan, way ka adkaysi badnaayeen. ninkii addoonka ahaa saylada marka la geeyey, addoon wax alla wixii lagu jeclaysanayeyna uu ninkani ku tilmaanaa, ayuu qiimihii jabiyey kii lahaa. maxaad u jabisay baa la yidhi, waa addoon la jecel yihe. wuxuu yidhi waxaan u jabiyey waa isku diraayo, ceebtaasaan leeyahay ayaan dadka inaan u sheego, ka ku gelayaa markaa ha ku qaato. nin baa yidhi aniga waabad ii sheegtay inuu isku diraa yahay, hadal uu ii keenaba rumaysan maayo, waanan qaadanayaa buu yidhi, sidaa igaga iibi. sidii buu ku iibsaday. war alla warkuu u keenaba dee waan ku aqaanaa unbu odhan jiray oo warkaa ma rumaysan jirin. ninkii markuu qaatay uu iibsaday addoonka ahaa ee isku diraaga ahaa, ayuu isku diraagii islaantiisii u tegey. ninkan soo iibsaday islaantiisii wuxuu yidhi heblaayoy odaygu wuu kula guursanayaaye, warkaa ma haysaa. waxaa jira dumarka meelo aan lagaba marin ayaa jirta. gabadhii way soo joogsatay oo waxay tidhi maxaa tidhi, inuu kula guursaduu doonayaaye ma og tahay buu yidhi odaygaagu. maxaad og tahay bay tidhi, way u soo joogsatay. wuxuu yidhi qadiyad baan kuu sheegaya una weligaa kula guursanaynin haddaad samayso. waa maxay bay ku tidhi, wuxuu ku yidhi markuu caawa seexdo 3 timood gadhkiisa iiga soo ogo. maaha buu yidhi madaxa, waa gadhka buu yidhi, halkaa gadhka 3 tin iiga soo go. haddaad 3 timood oo gadhkiisa aad ii keento weligaa noloshaada kula guursan maayo buu yidhi ninkaasi. gabadhi welibana caawa ii keen buu yidhi, caawa habeen dambe ma rabo, caawaan rabaa buu yidhi inaad ii keento. gabadhi waxay tidhi waan samayni, waan kuu keeni 3 timood. midi ayay si fiican u afaysatay si una u dareemin markay ku goynaysa gadhkan aayar ay ugaga jarto. odaygii buu u tegay oo wuxuu yidhi gabadhu inay caawa ku gowracdo inay doonayso ma la socotaa warkaaga buu ku yidhi, caawa inay ku dishay doonaysaaye. war waan ku garanayaaye iska teg buu yidhi. may xaaji buu yidhi anu adaan kuu digayahay oon ku jeclahaye, bal sidii wax seexanaya iska dhigoo khuuri adoo soo jeeda buu yidhi. ninkii waan eegaya warkaaga buu yidhi. odaygii markuu sariirtii tegey isagoon gam'in ilaan waxbuu baadhayaaye ayuu iska dhigay wax hurda. gabadhii markay khuuradii odayga maqashay ayay mididii la soo baxday. xaggiisa markay kula soo dhaqaaqday ay welibana gadhkii u dhowdahay, ayuu arkay gabadhii oo midida sidatiya warkii loo sheegay, ayuu ku soo booday oo isqabqabsigii ayuu mididii ka xoogay. intuu ka xoogayeyna gabadhii bay sii martay oo gabadhii halkii bay ku dhimatay. namaamku horta wuxuu sameeyaa waa taa.